laga yaabaa luuqadan imika isticmaali doono inaanad adigu inaanad maqlinba laakiin laga yaabaa inaad fahmi kartid haddii aad body language-kayga eegtid esta es agua yo me gusta beber el agua el bebo agua me gusta el agua frío no me gusta el agua caliente caliente haddii wixii hore shaqayn waayeen wax cusub tijaabi okay wixii uun ha tijaabinin hello salaamu calaykum magacaygu waa coach Axmed Khadar Macalin waxaan dhigaa college-ka la yiraahdo Iqra College online iyo offline the best place to learn the English language maanta casharku ka yara duwan yahay casharadii kale badana casharuun baan dhignaa laakiin mar waxa fiican in talo la siiyo soo maaha we have to give each other advice so arday badan baa weydiisay mar walba wuxuu weydiiyay man anigu luqadda in badan ma baranayay and walina kuma hadli karo that's a big problem so so maybe ardaygu ma khaldana maybe qaabka but the way habka qofku u baranaya khaldan so today waxaan ka hadlaynaa saddex hab ama three ways dadka luqadda u bartaan oo haddaad fahamtid these theories waxay kaa caawinayaan inaad luqadda qaabka u baranaysa maybe wax ka bedeshid maybe finally ku hadashid we hope after you watch this video that you will have a little bit more appreciation and understanding of the language and you will change the way you learn the language. Okay, Ambelona, let's start. Okay, number 1, input-output theory. Input-output theory. Beri hore waxa soo nin la yiraahdo Dr. Stephen Krashen YouTube-ka ka eegta ama Google-ka waxay sameeyeen daraasad weyn wadanka Japan iyo Korea intii 100 arday soo qaadeen ay soo kaxeeyeen 100 arday oo jaamacadda levelka jaamacadda iyo 100 kale oo levelka jaamacadda laba qaab ay u kala dhigeen okay so intaana galin research-ka baaritaankaas waxaan doonayay in sheego input-output theory xasuusta labada koox okay input haddaad garanaysa luuqaddu waxay leedahay 4 language skills 4 skill bay leedahay what are the 4 skills waa maxay ii sheega ma ku soo qor xagga hoose waxaan ku qorayaa L xaggana R xaggana S xaggana W haddaad garanaysa the 4 language skills imaka inta videoga intoojsid ku soo qor maxaad u malaynaysaa aan eegno L R S W the 4 language skills maxay yihiin Okay, the 4 language skills we are listening, reading, speaking, you're writing. So waxay sheegeen qoladan Dr. Stephen Krashen iyo qolada California University-ga daraasad weyn baaritaan ballaaran la sameeyay lacag fara badan la geliyay markii baadheen waxay heleen listening iyo reading-ku waa inputs waa wax maskaxdaada galaya speaking iyo writing waa outputs waa wax adiga ka soo baxay oo adigu soo saarisid waxay sheegeen kuwa listening iyo reading-ku sameeyay 100% vocabulary-gooda dhaama akhriskooda dhaama speaking-kooda wanaagsanaaday kalsoonidooda dhaama marka waxay ku arkeen 100 arday waxay u sameeyeen 100 kooxdii ugu horeysay waxay sameeyeen only listening iyo reading bay sameeyeen input kuwaas listening iyo reading bay u baran kuwan kalena 100 kalena waxay sameeyeen speaking iyo writing iyagu u dhigaan bas خلاص after 10 months 10 bilood ka bacdi way eegaan sidii u hadlayaan kalsoonidooda vocabulary-gooda qolada ma dhaanta 100% marka waxa taas waxay sheegaysaa input output theory hadda dhageysiga xooga saartid iyo akhriska labadaas luqadda waad si fiican u baran kartaa inshallah okay kaas waa input output okay comprehensible input theory kana wala soo saaray waa Google ka eegi kartaa wuxuu sheegayaa waxa jira hal qaab luqadda binaadamku u barto okay one way okay xagama ku qoriyaan this is the new way you hear the language wa maqlisa hear new language wa ina maqashid luqadda cusub adoo maqlaya isla markaana understand new language wa ina fahmi kartid luqadda understand new language labada in isla socdaan wayaan hadda iska dhageystid BBC aanad fahmeen faa'iido badan kuma jirto wa ina luqadda maqlisid fahmisidna hadii labadaas isla socdaan luqad kasta baran karta imika tusaale Spanish kan ku yara hadla laga yaabaa luqadan imika isticmaali doono inaanad maqlinba laakiin laga yaabaa inaad fahmi kartid hadii aad body language-kayga eegtid marka waxa dhacaya luqadii waad si fiican u baran kartaa ku soo tusaale ku siinaya esta es agua
Yo me gusta beber el agua. El bebo agua. Me gusta el agua frío. Frío. No me gusta el agua caliente. Caliente. Esta es mi mano derecha. Esta es mi mano izquierda. Yo come con mi mano derecha. No me come mi mano izquierda. Marka laga yaaba inaad adigoo weligaa luuqada maqlin inaad soo dhaweyn kartid oo fahmi kartid. Marka wallahi I think waan garanaya biyo ka hadlaya biya qaboob u jecel yahay ha gacantiisa midigtu ku cunaa tabidixdu kuma cuno hadda wixii sheegay marka comprehensible input inaad haddaad maqashid oo fahmisid labada hadii israacaan luuqadii waa arkaysa adoo ku hadlaya goora laala goora baratay ma garanaysid imika magaalada degan Hargeysa waxa ku badan Yamanida Oromada laba bilood bay joogay magaalada waxa halkaasigo Soomaali ku hadlayba markiiba ku hadlayba maxaa keenay way fahmiyaan way maqlayaan taas waxay keenaysaa luuqadda inay gasho comprehensible wax la fahmi karo. So you understand marka luuqadda inay dhex gashid way aan doonayna bartay that's reality. The last one kan baan arkay inta Hargeysa joogay waxa la grammar theory hal shay buu xoog saaraa waa rules waa sharciga luuqadda haddii jamac yahay shaygu asraaci haddii wax ficil soo dhaafay oo maadi yahay ama ficil soo dhaafay ed raaci haddii imika laga hadlayo wax imika socdo ing baa lagu daraayo waa continuous imika hadaa mustaqbalka laga hadlayo will baa laga horeysiiyo kaas waxa la yiraahdaa grammar theory dadkeen inta badan saas ay u bartaan okay marka waxba kama khaldana taasina way fiican tahay laakiin dadka qaar ba saa u bartaan aanu ma garanay dad badan luuqada ku hadla saa u bartay laakiin way jiraan kolay laakiin I don't really know I don't know too many people like that but okay saddexda theory I hope markaad video ga dhageysatay in aad imika baari kartid oo qaab cusub u baran kartid luuqada haddii wixii hore shaqeyn waayeen wax cusub tijaabi okay wixii una tijaabinin oo dhaqaaq oo wax cusub samee geed ma tihid waa dhaqaaqi kartaa oo baad internetka social media dadka weydii sida iyagu luuqada u barteen cilmi baaris samee what's the best way to learn a language haska qaadan wax qof ku sheego hatta aniga hay qaadan waxa nimaga ku sheegay oo soo baad soo faham wax adiga ku shaqeynaya samee marka you got to use the language it's up to you adiga ku xiran tahay you know anu kuma bedeli karo hadaan ku bedeli lahaa inta daawo yar ku siiyo iraado dawada yar lag luuqada ku hadli kartaa waan ku siin lahaa wallahi xaasid mihi waan ku siin lahaa laakiin dhibaatada waxa weeyaan ma jirto sidaas ma jirto dawo yar oo laqi kartaa aba English ku baro 2 week qaar bay iraado English ku baro 1 month ma baran karo luuqada waqti bay qaadata waqti si wax runtii isku sheeg ha caajisid waqti si it takes time waqti bay qaadata haddii aad doonaysid inaad si fiican uga hadashid waqti ka badan si ugu yaraan 2 saac si dhageysi fara badan maxaa la dhageysanaya xagaa u dhageysan kaas video kala insha Allah ku sharaxi doona okay my name is coach Ahmed Siyaado Ahmed Khadam macallin waxaan joogaa xagan Hargeysa Iqra College online waan ku dhignaa offline waan ku dhignaa haddii macluumaad uga baahan tahay iskuulka iyo qaabka u dhignaa waan la soo xiriiri kartaa and we're ready for you thank you guys assalamu alaykum